بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين habdhiskan magaciisa waa la yaqaan skeletal system horena oo soo aragnay habdhiskan skeletal system ka la yiraahdo waa habdhiska labaad ee qaadanaynay habdhiska laba qayb buu kala qaybsan soo sheegnay appendicular skeleton iyo axial skeleton lafaha toosan iyo lafaha toosnayn habdhiskan marka waxa weeye labadiisa qaybood qaybta axial ka la yiraahdo waa 8 lafood baan ku soo sheegnay qaybta appendicular kana waxaan ku soo sheegnay 126 lafood axial skeleton hadaan ku horeyno waxa kamid ah skull boneska lafaha madaxa chest iyo xitaa lafaha xabadka oo sida sternum bone lafta lega iyo vertebral column-ka reeraha laf dhabarta iyo ribiska oo feeraha sideeta ka lafood ba marka waxa loo yaqaan magacooda axial skeleton baa la dhahaa 126 waxaan soo kala qaybinay iyaga appendicular baa la dhahaa upper extremity iyo lower extremity upperku waxa 64 lowerku waxa ahaa maxay 62 abarka marka waxa kamid ah labada garbood ka bilaabanayaan ama shoulder grade ka bilaabanayaan ilaa iyo waxay ka bilaabanayaan fingerska ama waxa weey handska gacmaha farahooda lower extremity waxay ka bilaabanayaan pelvic oo miskaha waxay ku dhamaanayaan foot cagaha ku dhamaanayaan tirada guud waxa loo yaqaan 126 lafood waxa loo yaqaan marka magacooda appendicular skeleton baa la marka habdhiskan si guud waxaan kala qaybinay laba qaybood axial skeleton 8 iyo appendicular wuxuu yahay 126 habdhiska marka waa kan labada qaybood buu kala baxaya axial iyo appendicular buu kala baxaya axialki waa intaas kalarka casaanka la mariyay appendicularkina waa ka qaabkaas buu kala baxaya habdhiski soo kale waxa weeye human skeletal system ko saan soo sheegnay wuxuu ka kooban yahay 206 lafood halka 206 lafood kuma wada dhama sawirka dambe ku dhamaan doonaan laakiin sawirkan wuxuu ka hadli doonaa qaybo kala duwan oo kamid ah skeletal systemki craniumka waxa loo yaqaan lafaha gogosha maskaxda waa 8 lafood scapular waxa loo yaqaan garabka ribisna waxa loo yaqaan feerihi waa 24 vertebral column-ka reerada laf dhabarta 33 lafood pelviga waa miskihi patella waa ruuga fibula waxa loo yaqaan bixiga yar tibia waxa loo yaqaan bixiga weyn tarsalis waxa loo yaqaan lafaha ciribta femur waxa loo yaqaan bawdada ulna waxa loo yaqaan kalka yar radian waxa loo yaqaan kalka weyn shashada dhudhunka humerus waxa loo yaqaan cududa sternum waxa loo yaqaan lafta leg sawirkana wuxuu ka hadlayaa soo kale isaguna human skeletal systemki kii hore waxa human skeletal system laakiin xogaa wax kala duwan yihiin kan waa lafiyo la si kala saaray weeyaan school waxa la yaqaan madaxa la yiraahdaa madaxu sida caadiga 22 lafood buu ka kooban yahay 22 lafood madaxa laba qaybood loo kala qaybiyaa cranial bones iyo facial bones cranial bones waxa la lafaha gogosha maskaxda iyo saqafka maskaxda waa lafo balbalaaran oo madaxa dhinacyadiisa iyo saqafka kuna waxa la yaqaan facial bones waa 14 lafood 14 lafood iyo 8 lafood marka isku daro 22 marka school bones waa 22 lafood weeyaan neck bone waxa la yaqaan waa lafta waxa weey qoorta shoulder blade ama scapular waxa la yaqaan garabka waa laba garab sida caadiga ah raadii lafta ku yaala upper arm bone waxa la yaqaan gacanta waxa weey sare macnaha waa cududa waxa la yaqaan humerus baa laha vertebrate-ki iyaduna waa ricida laf dhabarta oo 33 ricidood bay ahayd hip waa ku jira miskihi oo iyaguna laba miskooda dhanka bidixa finger boneski waa ku xiga finger boneski maxay ahaayeen faraha gacmaha oo iyaguna labada gacmood kala ah bidix iyo midig waxa kale ku jira ankle bones waxa la yiraahdaa lafaha cagta la yiraahdaa ankle bones oo labada cagood marka la isku daro mid la tiro gooni noqonaysa foot bones waxa weeye cagta hore waxa weeye lafaheeda calf bone waxa la yiraahdaa bixiyaha waxa la yaqaan maxay tibula iyo fibula la kala dhahaa tibula iyo fibula waxa weey bixiga weyn bixiga yar marka la isku daro la yaqaan calf bone baa laha shin bone waliba calf bone waxa weey si gaar ah waxa loo yaqaan waa bixiga yar shin bone waxa loo yaqaan bixiga weyn baa laha fibula iyo tibula wala kala dhahaa knee capka waa ruugi tight bone waa lafda bawdada waxa loo yaqaan femur baa la yiraahdaa waxa kale kamid ah elbow bone waa suxulka ama lafta suxulka waxa loo yaqaan elbow waxa kale kamid ah forearm bone waa lafaha dhudhunka gacanta oo kala baxaya radiya iyo ulna oo kala baxaya kalka weyn kalka yar waxa kamid ah resta oo wixii lafaha cumta gacanta oo loo yaqaan carpalis ribiski baa ku jira iyagana wixii feerihi oo 24 feerooda oo kala baxaya true ribs iyo false ribs feeraha runta iyo feeraha beenta feeraha runta marka wixii waa feeraha xagga hore kaga dhigan lafta sternum bone-ka oo lafta lega gadaal kaga dhigan vertebral column-ka ama reeraha laf dhabarta 10 ka feerood ama 14 ka feerood dhan walba 7 ay tahay 14 waxa loo yaqaan true ribs baa la feeraha runta halka 10 ka soo haray loo yaqaan false ribs feeraha beenta been maxay ku noqdeen xagga hore baysan kaga dhiganin lafta sternum bone ama lafta lega waa 5 iyo 5 dhanka midig iyo dhanka bidix marka loo eego soo kale waxa kamid ah
بريسبون waxa loo yaqaanaa maxay waa lafta sternal bone kale ama lafta leg la yiraahdo lower jaw waxa la yiraahdo lafta daanka la yiraahdo marka dhammaan habdhiskeena waxa weeye skeletal system ka ama qalfoofka la yiraahdo shaqadiisa si guud waa ka soo hadalay waa support waa habdhiskeena oo qaabilsan maxay taageerid wuxuu noo sameeyaa internal framework ama qaab dhismeedka jirkeena sameeyaa inaan qaab yeelano soo kala shaqadiisa waxay protection wa difaac protective soft organs xubnaha muhiimka ah jirkeena difaaca sida maskaxdii oo lafaha difaacaya heartigi oo wadnaha waxa difaacaya lafaha difaacaya lungiska oo sanbabkii ah waxa difaacaya waxa la yiraahdo maxay feera difaacaya xubnihii reproductive organki xubnihii tarankii iyagana waxa difaacaya feero marka habdhiskan waa protection wa difaac shaqada kale oo qabtay waxa weeye waa storage oo wuxuu kaydiyaa fats dufan buu kaydiyaa bone marrow dhuuxaad buu kaydiyaa soo kale minerals kala duwan ama macdano kala duwan waa kaydiyaa soo kale shaqooyinka uu habdhiskan noo qabanayo waxa kamid ahaa blood cells formation inuu sameeyo unugyada dhiigga cadcad uu sameeyo shaqooyin inta ka badan buu qabtaa movementigu suurto geliya dhaqdhaqaaqa inaan dhaqaaq sameeyno isagoo kaashanaya waxa la yaqaano skeletal muscles ka muruqyada qalfoofka dul saaran isagoo dul saaran oo la yaqaan skeletal muscles ka skeletal muscles ka muruqyada qalfoofka isagoo kaashanaya habdhiskan shaqada wuxuu noo suurto geliyaa inaan movement aan sameeyno ama dhaqdhaqaaq aan sameeyno marka cashirkan halkaas uu ku eegay aad ba masantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh